saaxiibayaal bal ka waran ninkan dhalinyarada ah haddaan ku yidhaahdo digaagadu xaday 2010kii iyo beedkeedii ayaa waxaa loogu xukumay xukun dil ah. ninkan dhalinyarada ah oo dhashay waddanka Nigeria gaar ahaan state-ka la Ozun la yiraahdo ayaa wuxuu 2010kii xaday digaagad iyo beedkeedii. dawladdu way soo qabatay waana la xidhay 2010kii markuu 4 sano ku jiray 2014kii ayaa maxkamadda sare ee gobolkaas ku xukuntay xukun dil ah. 2014kii ayaa maxkamaddaas ku xukuntay ninkii dhalinyarada ahaa xukun dil ah sababtoo ah hadda ninkaas wuxuu xaday digaagad iyo beedkeedii. ninkii dhalinyarada ahaa 2014kii markii lagu xukumay dil wuxuu iskaga jiray xabsiga ilaa 2024kii laga soo gaarayo, laakiin arrinkaas wuxuu qabsaday waddanka Nigeria. haddaba bara saabkii gobolka joogay ayaa arrinkii dib u eegay ilaa 2024kii oo la soo daayay 10 sano wuxuu xidhnaa digaagadda. haddaba waddanka Nigeria madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu waa madaxweynaha saddexaad ee ugu korruption-ka badan caalamka. dawladda Nigeria waxaan la iloobi karin wasaaradda mid ka mid ah wasiirada oo la odhan jiray Beta Adu waxay xaday $600,000 welina bannaankay joogtaa. Afrika mushkiladda haysataa waa musuqmaasuq. adiga ka Soomaalihaan imsad qabiil inta ku taageertay xoolaha ummadda cunay. welcome ku qor waxay kula tahay